وعيارida naadiga kubadda cagta Real Madrid waa riyo ay ku riyoodaan ciyaaryahano badan oo kubadda cagta. Naadiga waxaa soo maray qaar ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa taariikhda. Taageerayaasha Real Madrid-na maskaxdooda wali kama aysan go'in waxyaabihii taariikhiga lahaa ee xidigahaas ay u qabteen. halka geesta kale ay jiraan xidiga kale oo taageerayaashu ay iska hilmaameen oo soo maray naadiga boqortooyada Real, kuwaas oo markii ay u ciyaareen ay ku fashilmeen, waxaana markii ay ka tageen Real Madrid ay ku biireen kooxo kale, halka oo ay taariikho kala duwan oo aan la hilmaamaynin ay ka sameeyeen. haddaba u diyaar garooba inaad nala daawataan 10 xidig oo maskaxdaada marna aysan rumaysan doonin oo soo maray naadiga boqortooyada Real Madrid balse ka tagay oo dadka si weyn ay u barteen. fadlan subscribe saar si muuqaalada cusub ay ku soo gaaraan oo share dheelana wadaag asxaabtaada. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Roberto difaaca xulka qaranka wadanka Brazil wuxuu soo maray naadiga kubadda cagta Real Madrid sanadkii 1996 wuxuu kula guuleystay horyaalka iyo Champions League koobab ay ka mid ahaayeen, waxaana markii dambe uu aaday naadiga Flamengo, kadibna Bayer Leverkusen, waxaana markii dambe soo iibsatay naadiga Bayern Munich, halkaas oo wax weyn kula qabsaday naadiga Bayer, iyadoona dadka badankood halka ay ku barteen, isagoo markii ugu dambeysay sanadii 2014 iska casilay kubadda cagta. Huntelaar waa weeraryahanka reer Holland, wuxuu ku biiray naadiga kubadda cagta Real Madrid isagoona kaga yimid Ajax Amsterdam sanadkii 2009. xilli ciyaareed barkii ayuu u ciyaaray naadiga cadcadka 20 kulan oo kala qayb galay Los Blancos, waxa uu dhaliyay 8 gool. inkastoo bandhig wanaagsan uu muujiyay muddadaasi, Florentino Perez ayaa bilaabay in kacdoon kooxda uu ka sameeyo ciyaaryahano cusub kooxda uu ku soo biiriyo, waxaana taasi ay keentay inuu go'aansado inuu iibiyo Huntelaar oo xilli ciyaareed barkii kaliya u ciyaaray, waxaana uu ku biiray Milan kadibna Schalke halka uu ku dambeeyay oo ahayd Ajax Amsterdam. Juan Ferran waa mid ka mid ah difaacyada lafdhabarta ee kooxda cadaawada xoogan ee ka dhaxayso Real Madrid iyo Atletico Madrid, balse Juan Ferran wuxuu ka mid yahay ragga ay soo saartay akademiyada boqortooyada Real Madrid ee Castilla. inkastoo nasiib uusan u yeelan inuu fursad weyn u helo ka mid noqoshada kooxda koowaad oo boos uu ka helo sanadkii 2004-2005 ayaa waxa uu isagu si amaaha ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Espanyol, kadibna Osasuna, halka sanadkii 2011 uu ku biiray naadiga Atletico Madrid, waqtiga oo ilaa hadda uu la joogo, waxaana halkaasi uu kula guuleystay koobka horyaalka ee La Liga hal jeer, halka Europe League-na 2 jeer uu la qaaday, waxaana bandhig wanaagsan uu muddadaasi uu ka soo muujiyay naadiga Atletico Madrid. Marcos Alonso waxa uu soo ciyaaray dhammaan qaybaha kala duwan ee naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay ku jirto kooxda waaweyn, kaliya hal jeer ayuu u ciyaaray kooxda sare sanadii 2010 kulankii Racing Standard, kadibna waxa uu ku biiray naadiga Bolton. Fiorentina ayaa kala wareegtay, sidoo kale Sunderland ayuu ku biiray, mar kale Fiorentina ayuu ku biiray, kadibna waxa uu yimid gegada Stamford Bridge ee ku ciyaarto naadiga kubadda cagta ee Chelsea, halkaasna wuxuu ku qabsaday wax walba isagoona ka mid noqday xidigaha ugu waaweyn isla markaana ugu fiican booskiisa ka ciyaara, wuxuuna sanadkiisii ugu horeeyay kula guuleystay horyaalka dalkaasi, sidoo kale wuxuu la qaaday FA Cup-ka. Juan Mata waa laacib kale oo soo xirtay fanaanada cadcadka, wuxuuna ku biiray kooxda labaad sanadkii 2006-2007 isagoo halkaasi bandhig wanaagsan ka muujiyay 10 gool ayuuna 39 kulan ugu dhaliyay naadiga labaad, balse kuma uusan guuleysan in naadiga koowaad boos uu ka helo. markaa kadibna waxaa loo diray Valencia, isagoona halkaa kadib kaga soo biiray naadiga kubadda cagta ee Chelsea, halka uu kula guuleystay koobab uu ku jiro koobka caanka ee Champions League, wuxuuna markii dambe ku biiray naadiga kubadda cagta ee Manchester United. Alvaro Negredo wuxuu ka mid ahaa xidigihii soo maray naadiga kubadda cagta Real Madrid, inkastoo bandhig wanaagsan bilowgiisii halka uu ku sameeyay wuxuu tagay Almeria, kadibna wuxuu ku soo laabtay naadiga Real Madrid. Sevilla ayaa ka qaadatay, Valencia ayuu kaga wareegay, wuxuuna halka kadib kaga dambeeyay naadiga kubadda cagta City oo horyaalka iyo FA Cup-ka uu la qaaday. Philip Lewis wuxuu ka mid ahaa xidigihii u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid, gaar ahaan kooxda labaad, balse kuma guuleysan inuu boos uu ka helo kooxda koowaad, waxaana uu aaday Deportivo La Coruña,
kadibna wuxuu kaga dambeeyay naadiga kubadda cagta Athletic Madrid isagoo Chelsea ku biiray wuxuuna mar kale bandhig wanaagsan markii halka uu ku soo muujin waayay ku laabtay naadiga Athletic Madrid. Fabinho ninka reer Brazil ee dhawaangalka kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu si amaaha ugu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxaana kooxda koowaad uu ciyaaray kaliya hal kulan isagoo caawiyay hal gool kadibna waxa uu tagay naadiga Monaco oo halkaas uu kula guuleystay horyaalka France xilli ciyaareedkana wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Antonio Cassano shalaydeeda ugu weyn waa Real Madrid waxaan la joogay kooxda ugu fiican dunida waxaan awooday inaan sii joogo waqti dheer laakiin waxaan raacay dareenkayga carada waana qaldamay tababarahayga ma qayb galinayn kulamo badan waana aflagaadeeyay sidaas ayuu ku cabiray Antonio Cassano ka tagistiisii naadiga kubadda cagta Real Madrid oo sabab u ahayd miisaankiisa oo kordhay bandhigiisa oo sii xumaaday awadeed waxaana markii dambe amaah lagu siiyay Sampdoria isagoona kadib kaga sii dambeeyay labada Milan ee AC Milan iyo Inter Milan. Samuel Eto'o xiddig kasta caanimadiisa waxa lagu xasuustaa meesha uu bandhig wanaagsan ka soo muujiyo waxaana lagu xasuustaa qaab ciyaareedkii cajiibka lahaa ee Barcelona ugu soo ciyaaray balse dad badan ma oga inuu u soo ciyaaray naadiga kale ee dagaalka xooggan ee ka dhaxeeyo ee cadcadka boqortooyada Real Madrid. ninkan 16 jirkiisii ayuu ka mid noqday akademiyada boqortooyada ee Castilla balse Real waxay u aragtay ninkan inuu khibrad badan u baahan yahay sida daraadeed waxa lagu diray amaah iyadoona markii dambe uu ciyaaray kooxo dhowra waxaana uu ku degay markii dambe naadiga Real Mallorca kadibna waxa halka ka aragtay naadiga Barcelona oo waqti cajiib ah uu kula qaatay isagoo kula guuleystay koobo badan oo ku jira horyaalka wadankaasi iyo koobka UEFA Champions League. fadlan haddii uu ku cajibiyo muuqaalkan subscribe saar si muuqaalada cusub ay ku soo gaaraan waxa ugu weyn ee aad noo samayn kartid ayaa inaad like saartid si aad nagu dhiirigelisid sidoo kale share la wadaag asxaabtaada aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.